waa ku salaamay horjoogayaashii kooxda al-shabaab ayaa dhammaantood ka soo cararay gobolada dhexe ee dalka iyagoo halkaas uga soo baxay sabab la yaab leh haddaba maxay tahay warbixintan ayaan kugula wadaagayaa sidoo kale mahad karatay iyo ismaaciil injineer oo ah ku-xigeenada hogaamiyaha al-shabaab ayaa mid ka mid a kooxda ku eedeynaya fashilka iyo jabka gaaray kooxda haddaba waa keeninkaasi muxuuse ka hayaa al-shabaab dhexdooda warbixintan ayaan sidoo kale kugula wadaagayaa soo dhawaada saaxiibayaal idinkuna muuqaalkan leeg noo saaro oo si sheergareeya aragtidiina nala wadaaga wararka ka imaanaya gobolada dhexe ee dalka gaar ahaan mudug galgaduud hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa dhammaantood sheegaya in hogaamiyaashii sarsare ee kooxda al-shabaab inay halkaasi isaga carareen iyagoo iska xaadiriyey gobolada shabeellada hoose iyo jubbada dhexe ragga in muddo ah gobolada dhexe ku sugnaa oo isaga cararay halkaasi waxaa ka mid a sheekh yuusuf kowaka dukade kana mid a hogaamiyaasha al-shabaab haatanna ku magacaaban horjoogaha kooxda ee shabeellada dhexe in vitro fertilization IVF waa adeeg ilmo beeris ah oo aan weligeed laga hirgelin waddankeena Soomaaliya waxa markii ugu horeysay keentay xarunta Marwa Fertility Center Muqdisho bacriminta IVF waxay lamaanaha u fududeynaysaa inay ubad helaan alla ayaa bixiye iyadoo la isticmaalayo qalab casri ah isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta Marwa Fertility Center Muqdisho taleex wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqdo wararku waxay sheegayaan in kadib markii al-shabaab laga saaray magaalooyinka xarar dheere iyo ceel dheer oo gobolka galgaduud ka tirsan iyo mudug in shabaabku ay awoodi waayeen inay hub iyo waxyaabaha kale ay kala soo degaan dekadihii halkaasi ku yilay oo ay kala soo degi jireen markii hore sidoo kale kooxda ayaa laga cuuryaamiyey dhanka wadooyinka iyagoo awoodi waayay in baabuurtooda ay xitaa shidaal u helaan cuntada ayaa sidoo kale gabaabsi ah kadib markii dowladda Soomaaliya gaar ahaan militariga Soomaaliya ee ku sugan goboladaasi ay baaritaano ku sameeyeen baabuurta u gudba kooxda al-shabaab lagana mamnuucay in shidaal iyo sidoo kale sahayadoodu ay si fudud halkaasi uga gudubto haddaba sidoo kale waxaa kordhay duqeynta dhanka diyaaradaha ee saaxiibada taageera dowladda Soomaaliya ay halkaasi ka wadaan taas ayaana sababtay in dhammaan horjoogayaashii kooxda al-shabaab ee halkaasi ku sugnaa isaga cararaan una tallaabaan dhanka shabeellada hoose iyo sidoo kale jubbada dhexe halkaas oo ay ku xoogan yihiin weli kooxda argagixisada ah ee al-shabaab shabeellada hoose xubnaha gaaray waxaa ka mid a sheekh yuusuf kowaka dukade iyo sidoo kale hogaamiyihii al-shabaab ugu magacawnaa gobolka galgaduud waxaana la sheegay in labadaasi nin hadda ay ku sugan yihiin shabeellada hoose militariga Soomaaliya ayaa weli wada cadaadiska ay saarayaan kooxda argagixisada ee al-shabaab iyada oo horjoogayaal sare oo kooxda ka tirsan oo ay ka mid yihiin mahad karatay iyo ismaaciil injineer ay ku eedeeyeen mid ka mid a xubnaha kooxdu inuu ka dambeeyey fashilka iyo jabka gaaray kooxda ninka ay mahad karatay iyo ismaaciil injineer ku eedeeyeen fashilka kooxda dhexdooda ka jira iyo jabka gaaray ciidankooda ayaa lagu magacaabaa guuleed ilka case waxaana la sheegay inuu ku magacaaban yahay hadda waxa shabaabku ay ugu yeeraan jeeska iyagoo oo ku eedeeyay inaanu isku dubaridin ciidamada sidoo kalena aanu diyaargarow xoogan aanu samaynin shabaab ayaa ku fashilmay dhowaan weeraro ay ku qaadeen gobolka jubbada hoose saldhigyo waaweyn ay ku leeyihiin ciidanka Jubbaland kuwaas oo laga saaray kooxda argagixisada ah ee al-shabaab taas oo qasabtay in guutada Jees Ayman ee Kenya ka dagaalanto laga soo saaro gudaha Kenya si ay u difaacaan badhaadhe oo ciidanka ku sugan buulo xaaji ay si fudud ku tigi karaan al-shabaab ayaa haatan u muuqday inay ku fashilmeen labadii meel oo ay ka noolaayeen oo kala ah jeeska iyo amniyaadkuna waxaa caqabad ku noqday howlgallada ka socda dalka iyo sida dowladda Soomaaliya ay kor ugu qaatay ammaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho jabka kooxda ayaa u muuqda inuu maalinba maalinta ka dambeeyo is soo tarayo iyada oo dhibaatooyinka gaaraya kooxdu ay halkeedii ka sii socdaan dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale cuuryaamisay ilihii dhaqaale ee kooxdu ay ka heli jirtay lacagaha xad-dhaafka ah sida ganacsiga magaalada Muqdisho iyo waxyaabaha ka soo dega dekada iyo airportka intaba dowladda Soomaaliya ayaa il gaar ah ku hayso iyadoo ay adag tahay in al-shabaab hadda ay meelahaasi lacaga ka helaan haddaba sidee baad u aragtaa in hogaamiyaashii shabaabku ay ka soo cararaan gobolada dhexe ee dalka aragtidaada nala wadaag muuqaalkana leeg noo saaro si sheer gareeya waa mahadsantiin